إننا قوم خلقنا قيمون إننا قوم خلقنا قيمون مثل سحب. السلام عليكم 1979 waxaa dhacay heshiiskii khiyaanada ummadaha heshiis ay u dhintaan malaayiin qof sanad kasta اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة Convention on the Elimination of all form of discrimination against women marka la soo gaabiyana seedaw haddaba yaa heshiiyey yaa fulinaya waa maxay heshiiskan maxaa laga dhaxlay waxaan ku faaqidi doonaa mowduuceena maanta halkan waa ibdaac show haddaad nala socotay waad ku mahadsan tahay farxad bayna noo tahay haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir fadlan muuqaalkana la wadaag asxaabtaada maadsani isku soo noqod wanaagsan sidaan hore u soo sheegnay 1979 waxaa dhacday wax lagu magacaabi karo awaamir laakiin la huwiyey magaca heshiis qolada qaramada midoobay waxay soo saareen awaamir ka kooban 30 qodob waxayna amar ku siiyeen dhammaan dawladaha xubnaha ka qaramada midoobay inay saxiixaan dhaqan galiyaan heshiiskan inta kuma eka waliba inay ku daraan dastuurka dalkooda ayna waliba u dhisaan ururo gaar ah oo dhaqan galiya sidoo kale waxay ku amreen inay dejiyaan go'aano cad oo ciqaab ku soo rogaya qof kasta oo khilaafa awaamirtan arrinku halka uu dhaafay iska waxa kamid ah qodob cadeynaya inaan wax khiyaar lahayn haba yaraatee dawladaha xubnaha ka qaramada midoobay sidoo kale waxa loo dhisay urur shaqadiisu tahay fulinta awaamirtan kana shaqeeya meel kasta shaqaalaha ururkan waa madaxda dawladaha afartii sanaba hogaaminta ama madaxda dalalka waxaa laga rabaa inay soo gudbiyaan waxay ka fuliyeen heshiiskan wixii hirgeli waayay iyo sababta intaa kuma eka waliba waxaa lagu sameeyaa dabagal waxaana warbixinta laga qaataa hay'ado madax bannaan oo ka shaqeeya meel kasta iyo qaar ka mid ah dadka shacabka ee waddanka markaas la rabo in la ogaado warbixintiisa si loo xaqiijiyo in waxay soo gudbiyeen uu yahay warbixin sax ah kadib waxaa la qabtaa dardaaran iyo tilmaamo ku saabsan sidii loo dhammaystiri lahaa wixii hadhay dhammaan dalalka xubnaha ka qaramada midoobay way saxiixeen heshiiskan sidoo kale waxaa saxiixay kuwa aan la aqoonsanayn sida Taiwan iyo wadamo kale oo la mid ah marka laga reebo 6 wadan arrinka cajiibka ama taqaana dalalka aan wali saxiixin waxaa ka mid ah dalka Mareykanka oo u arkay in heshiiska yahay burbur ummadeed oo haboonayn in laga dhaqan galiyo dalkooda taas beddelkeeda waa in lagu qasbaa ummadaha la gumaysto si loo sii burburiyo waxaa kaloo ka mid ah wadamada aan wali saxiixin dalka Soomaaliya Iran iyo dhowr dal oo kale waa maxay heshiiskan mabda'a koowaad ee uu ka duulo waa sinaanta ragga iyo dumarka dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha sida shaqada qofku waxa uu ka shaqeynayo ma jiro wax u gaar ah dumarka sidoo kale wax ragga u gaar ah ma jiro waxbarashada ma jiro wax kala soocaya ragga iyo dumarka lama ogolo iskool gaar ah dumarka kuwa ragga gaar ah waa qasab inay ragga iyo haweenku hal meel wax ku wada dhigtaan arrimaha qoyska waxa uu xambaarsan yahay heshiiskan waa qodobka arrimaha qoyska marka wax lagu qiimeeyaa awaamirtan ma jiro wax lagu magacaabo qoys oo isku xidhan sidoo kale ma jiro qof mas'uul ah iyo qof mas'uul laga yahay lama ogola ilmo la dhalay oo la maamulo xaas la biilay meesha kuma jirto ciyaal la koriyo mas'uul laga yahay ma jiraan aabba reerka u soo shaqeeya keligii lama ogola hooyadu waa inay qabataa wax kasta oo aabbuhu uu qabto markay rabto waa inay iska furtaa aabbaha ninkay rabto waa inay la tumataa hadday rabto naag kale ha guursato tirada ilmaha ay dhalaysa iyada khiyaar u leh ilmaha qof mas'uulka ay ma jiro hadday rabto midka uurka ku jira waa iska soo ridi kartaa ilmaha cida lagu abtirinayo iyada khiyaar u leh gabadhu ninkay doonto ha la tumato jidhkeeda iyada xor ah gabar 18 sano ka yar lama guurin karo tumashadu way bannaan tahay xitaa ilmaha 10 jirka ah taas iyo waxyaabo kale oo badan waa micnaha iyo xuquuqda uu xambaarsan yahay heshiiskan maxaa laga dhaxlay marka la soo gaabiyo heshiiskan waxaa lagu soo koobi karaa waxa laga dhaxlay burburka mujtamacii lagu dabaqay heshiiskan qodobada ugu waaweyn ee laga dhaxlay waxaa ka mid ah 1 burburka qoyska iyo furiinka noqdo wax micno la'aan ah illa la waayo wax nacfil oo lagu magacaabi karo reerba 2 kumanaan caruur yar oo dacna ugu dhinta wadooyinka ilaa markii dambe loo sameeyo hay'ado kafaalo qaado koriya 3 in la isu fulo sidii xoolihii iyadoo aanu jirin wax loo tixreebayo dastuur diin iyo ehel midna
kumanaan gabdho yaryara oo dayacmay kadib markii laga saaray dadkii mas-uulka ka ahaa kadibna ku dhacay dabinkii qurunquutayaasha lacagta haysta kadibna ay ku qasbeen inay ku sameeyaan wax kasta oo niyadooda ku soo dhaca si ay u siiyaan wax yar oo nolol maalmeed ah ayin xarumadoo lagu sameeyo dacaaro iyo sino si midaan la'aan ah 6 tarango ah dadkii caddaanka ah ee fuliyey heshiiskan ilaa dadkoodii wax fahmayay ee afka furtaan qayladhaan ugu dambeyn waxaa galbeedka ka dhacay wax kasta oo xun oo niyada ku soo dhaca waxayna ku horumareen tiknoolajiyadda iyo wax soo saarka laakiin waxaa dhintay qiimihii aadamaha ma jiro wax qiyam akhlaaq diin dadnimo wax la ilaaliyo loo tixraabayay ma jiro waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaad wax xun ka faa'iiday ugu yaraan inaad wax ka ogaatay khiyaanada maalin iyo habeen la maleegayo ummadana lagu fasaadinayo si dadnimadu u dhimato kadibna wixii la rabo looga sameeyo intaana ku soo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.